السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meel baa joogtaan iyo si walba muuqaalkan idin soo gaaray bartaad kala socotaan waa Saafi Media. Hadad nagu cusub tahay daawad nagu soo biirahana naga ilaawin share iyo like iyo subscribe ka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo la kulmay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11aad Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay ka wada hadleen xal u helista go'doonka saaran deegaanada dowlad goboleedkaas. Laftagareen ayaa soo bandhigay xaaladda adag ee deegaanada Koonfur Galbeed ka jira sida abaarta degmooyinka go'doonka galay oo aan isu gudbi karay in xal loo helo si loo gudbi lahaa caqabadahaas jira. Madaxweynaha iyo gudoomiyaha ayaa xog wareysay xaaladda dalka iyo sidii wax lagu qaban lahaa dadka ay saameysay abaarta ee ku nool guud ahaan gobolada Koonfur Galbeed. Kulanka waxa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay barta madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dhankiisa sheegay inuu dareemayo culays ka jira maamulka Koonfur Galbeed oo ah deegaan doorashadiisa xilli xaalado dhanka nolosha ah ay wajahayaan boqolaal ruux. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa dhowr jeer ku hanjabay howlgallo wado isfuris oo ay iska kaashanayaan ciidanka federaalka dowlad goboleedkaas iyo howlgallada midowga Afrika ee ADMIS. Muxuu yahay ajendaha koowaad ee Ra'iisul Wasaare Xamse? Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xilkiisa si rasmi ah ula wareegay ayaa ku dhawaaqay in dowladda Soomaaliya dagaal ay siga xoreynayso cadawga Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha ayaa cadeeyay in ajendaha koowaad ee xukuumaddiisa tahay xaqiijinta amniga si buuyir loo gaaro amni sugan oo dadka Soomaaliya looga saaro dhibaatooyinka ay ku jiraan oo abaaruhu ugu horeeyaan. Wax kale lagama qashaqeyn karo haddii aan nabadgelyo la helin. Meeshaas weeye meesha bugta Soomaaliya xalkana u baahan waa meeshaas ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Innagoo isku tashanayna oo heshiis ah waxa laga maarmaana in aan u dhaqaaqno sidii aan dalka uga xoreyn lahayn ayuu yiri Ra'iisul Wasaaruhu. Ra'iisul Wasaare Xamse wuxuu sheegay inuu ku kalsoon yahay in dadka Soomaaliyeed ay ka badbaadin doonaan amni xumadaas dalkana u gaari doono xorriyad laga shaqeeyo horumarkiisa. Hadalkan ayuu ka qayb ka ahaa khudbad uu Ra'iisul Wasaaruhu ka jeediyay xalfadii uu galabta xilka kula wareegay isagoo Ra'iisul Wasaaruhu xilka kula wareegay Roble oo ku tilmaamay inuu yahay geesi dalka ka badbaadiyay inuu meel xun ka dhaco.